maanta garoonka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho Stadium maxaa ka dhacay xilli waliba uu ku sugnaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maxaa inaga qarsoon maxaa ka jira in madaxweynuhu halis weyn oo halkaas ku galay kadibna lala carray oo goobta lagala carray warbaahinta qaar ee gudaha ayaa tabinaysa xaalad adag inuu madaxweynuhu halkaas ku galay barinteena dul istaagin waxaan rabaa inaan idin wadaago muuqaal yar oo kooban oo qaybta dambana xumbaarsan fariin iyo sidoo kale arrin ceebteeda wadata oo ayadana ay direen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka waliba la qoyska ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya balse horta qaybta hore oo wixii ka dhacay garoonka aynu wada daawano qaybta dambana iyadana way ku xigtaay aan wada daawano kadibna aynu iskugu soo noqono xaqiiqada iyo sidoo kale xaaladda sida ay wax u jirto dhulka ninka loo boobayo xoogaya madaxweynuhu adeer u yahay aniguna madaxweynaha adeerkii labaadaan u ahay ilmaha oo madaxweynuhu dhala inta ugu badanna abtiyaan u ahay waxaa cajiib ah abtiga oo loo xoogayo adeer weligeen ninkan ka hor ma aanan arag war dadka xooggaha laga daayo Soomaaliyeed haddii laga daynayna oo hadda hoos loo dhaadhacana abtiga iyo adeerka laysu booba ha la daayaan leenahay war ha la daayo dalka sharciya u roon dowladnimo u roon sida hadda lagu wado walxaan naqaan ma 70 sano jira weligay walxaan arka ma wuxuu yiri caruurtiisa ana abti u ah aniga abtiga u ahaa ee caruurtiisa abtiga u ahaa ayaa dhulka layga dhacaya oo waxaa loo dhacaya adeerko ayaa loo dhacaya waa arrin cajiiba waa garnaqsho aan caadi ahayn uu ka dhigtay ninkaas uu garnaqsaday madaxweyne xasan buu la garnaqsaday bal ninkaas iyadana waa dul istaagi doonaa dhanka kale waxaa la xidhay nabadoon xalane oo ka mid ah nabadoonnada magaalada Muqdisho waliba aad looga yaqaan magaalada Muqdisho xilli uu ka dhoofayay garoonka Aadan Cadde ayay ciidamo qabteen xabsiga ayaana la dhigay nabadoonkan maxaa lagu xidhay waan soo qaadan doonaa waxaa dhanka kale nabadoonkan iyo xargiisa si weyn uga hadlay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre iyo waliba xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si weyn uga hadlay xariga nabadoonkaas haddaba nabadoonkan ma wuxuu la shaqaynayay mas'uuliyiintaas mise maxaa dhacay maxaa lagu xidhay waa soo qaadan doonaa soo dhawaada idinkuna aragtidina inay igula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay maanta waxay ahayd maalinta macalinka muuqaalka horena qaybtii waxa way bilowga ayaan ku hambalyeeyay horta hambal yaa leeyahay maalinta macalinka maanta waxaa lagu qabtay Muqdisho Stadium garoonka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay waxaa ka soo qayb galay ardaydii oo waliba uniformadooda iskuuladii sidooda uniformka uga imaadeen waxaa ka soo qayb galeen dawladda iyo xubnaheeda qaybaheeda kala duwan bulshadii rayidkayd baa iyadana qaybka oo ayadana aan ka maqnayn macallimiintii Soomaaliyeed wixii aaga ka dhawaaya joogay oo dhan baa iyadana ka soo qayb galo imaaday xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo qurux badan oo lagu muujiyay maalinta macalinka Soomaaliyeed ayay ahayd madaxweyne Xasan baa imaaday qaybta VIP-du ka soo galay wasiiradii oo dhan baa imaaday oo iyagana qayb ka ahaa imaatinka madaxweynuhu markuu imaaday si qurux badan bay xafladdu u dhacday oo waa ka hadlay oo meesha waa ka qudbay laakiin arrimahan la yaab kala waxay tahay ee ay dadku qalbiyadooda ku qarsanayeen imaatinka madaxweynaha iyo qabsoomidda xafladda midna raali kama aysan kuma faraxsanayn maxaa muujinaya muuqaalka ay soo diray baa muujinaya qaybta hore ay soo galiyeen daawateen ayaa muujinaya madaxweynuhu markuu intuu khudbadiisii dhamaystay golihiisa wasiirada iyagu ay dareereen oo gawaaridii VIP-dii waxa weeyaan dhahe V8 iyo bulletproof iyo asaal intii la wada galay la tagay oo madaxweynuhu meeshii ka baxay waxaa lagu dhaqaaqay oo la fantay tarbiyada boardkan soo fuji waa Xasan qarra kan soo fuji waa heeb wasiirka qarra kan soo fuji waa astaanta qarra boardkii baa gabi ahaanba boorarkii meesha ku yaalay ayaa cagta la mariyay cagta iyagoo waliba le
dal xaraashe iyagoo leh baa boorarkii cagta la mariyey. waa arrimo la yaab la weeye. waxaan aad ula yaabay shacabkeena Soomaaliyeed aragtidooda. war haddii dadku ay dibadbaxayaan waddan lagu dibadbaxay leedahay, haddii qof la nabcad yahayna qaab loo sameeyo ay leedahay. laakiin in waxa weeye boorarka iyo lagu dhaqaaqa meelaha qurxinta ee la qurxiyey ee warqadaha qurquruxda badan lagu dhajiyey ee bilicda inoo soo jiidaysay in lagu dhaqaaqo arrin fiican ma. shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay kala ogaadaan shakhsiga iyo qaranka. shakhsiga iyo qaranku waa kala duwan. war xasan beri shalay buu imaaday berina wayna dhaafaya. anaa idiin huba xasan shalay buu imaaday berina wayna dhaafaya. waxa haraya inoo haraya waa dhulka iyo dalka iyo weeyaan. marka wixii qurux badan yaan la fujinin. hadda garoonkaas lagu ciyaaray ee cid walbana ay joogtay ee balaayo dhan iyo cadowga Soomaaliya oo dhan laga yaabo inay farfadhiyaan, aad iyo aad baan horta uga xumahay. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay adkaysta. qofku waxay nii qaban doona lama garanayo. ka xasan ka dambeeya laga yaabaa inuu kasii xumaadee. hase ahaatee dalkeennu iyo dadkeennu waxaa danwa midnimo wadajir iyo inaan isku tashi aan wax ku dhisano. isku tashi haddaan intaan la helin waxa ma qabsan karno. shacabku ha joojiyaan cadiifada iyo sidoo kaleeto laablakaca iyo waxay markaa siyaasigu intuu yidhaahdo ninkaas waa sidaas uu yahay haddana shacabku ay horboodayaan. arrintaa ha la joojiyo. garoomada iyo sidoo kaleeto xarumaha bilicda yaan waxba laga fujin, yaan lagu dheelin. dalka waa dalkeeni, yaan lagu dheelin. dalkaada laguma dheele, dalka yaan lagu dheelin. daayarta taasaan farayaa iyo cid walba Soomaaliyeedba. arrintan la leeyahay madaxweynuhu halis buu ku galay, waxba kama jiro. madaxweynuhu markuu khudbadiisii dhamaystay waa baxay. inta uu joogayna wax rabshada oo dhacday iyo wax kacay iyo wax bulshaa iyo wax amni daraa midna ma jirin. laamaha amnigu aad bay ugu mahadsan yihiin inay amniga madaxda qaranka iyo goobtii la iskugu imaaday dadweynuhu inay sugaan. aad bay ugu mahadsan yihiin. in dalka la suura xumeeyo maaha oo wix aan jirin la sheega maaha. marka xafladdu marka si heer sare ayay u qabsoontay. maalinta macalinka ayayna ahayd. hambalyo ayaan leenahay. madaxweynuhuna wax halis oo u galay ma jiro. qolada tabinaysa warbaahinta, qolada waxaa tabinaysana waxaan leenahay war hada ka daaya dalka ha suura xumaynina. intaasaan horta leeyahay. taasi waa mid ah. dhinaca kaleeto nin baa gar dhigtay oo madaxweynaha u garnaqsaday. wuxuu yidhi dhinac adeer baan u ahayo wuxuu yidhi caruurta adeerkood baan ahay. dhinacna wuxuu yidhi inta badan caruurtiisa abti baan u ahay. waa madaxweyne xasan abti baan u ahay. dhulkana cidda loo boobaye la siinayo waa adeerkii caruurtiisa adeerkood weeye waxa dhulka la siinayo. ma garanayo buu yidhi siday ku dhacday abti intii wax laga soo boobo in la siiyo adeer loo boobo. macquul maaha buu yidhi. 70 sanaan jiray sidee wax loo wadaa buu yidhi. waa fahmi lahayd dhulkan la boobayo dowladdu ay qaadayso ee adeerka loo boobayo ee abtiga laga soo boobaya maxay tahay? ninkaas waxaan dhihi lahaa si fiican buu u garnaqsaday mudane madaxweyne. ninkaas qaabil. ninkaa ha la qaabilo. cid walbay qusayso muuqaalka meel dheer ka tuura. ninkaas waa in la qaabilo. ninkaas waa garnaqsaday. ilmaha abtigood baan ahay buu yidhi. inta badan caruurta madaxweyne xasan baan abti u ahay buu yidhi. wixii waxa weeye layga boobay baana adeerkii loo boobaya oo la siinayaa buu yidhi. macquul maaha in ilmaha abtigood. abtigu waa naas, waxa weeye waa naaska nuugta. waa hooyo aan naas lahayn bay dhahaan Soomaalidu. hooyo aan naas lahayn. abtigu waa hooyo ku dhashay oo aan naas lahayn. marka waxaan leeyahay abtiga waxa laga soo boobay adeer lama siin karo. abtiba wax laga dhiciy adeerna waa la siin. macquul ma aha. mudane madaxweyne adeerka waxaad u boobaysid ka daa dalka boob horta waxba xal inoo ahaba. war dalkan in wax la boobo mooyeene soo inaan wax qabsano maxaa loo laayay? waxaan leeyahay marka mudane madaxweyne ka daa boobkaas ka daa ayaan leenahay. taasina waa middaa oo ninka waa garnaqsaday. dhinaca kaleeto waxaa la xiday maanta nabadoon xalane oo ka mid a nabadoonada gobolka banaadir xilli uu ka safriyey airportka magaalada muqdisho una markaasi u safriyey markaasi dalka dibadiisa uu baxayay. nabadoonkan ciidan ka tirsan kuwa booliska ayaa qabtay. xabsiga ayayna dhigeen. welina lama xaqiijin xabsiga uu ku xiran yahay. xarigga nabadoonkan waxaa si weyn uga dhidhiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku tilmaamay afduub sharci darro ah oo la afduubay nabadoonka. waxaa sidoo kaleeto isagana ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagana ku tilmaamay afduub nabadoonka la afduubay. sidoo kale Xasan Cali Khayri ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa isagana si weyn uga hadlay
oo yidhi waa afduub la afduubay xildhibaanka taasoo marka muujinaysa aan dhehe nabadoonka taasoo muujinaysa in nabadoonku uu la xulufo ahaa madasha mucaaradku si weyn bay uga hor imaadeen arrintaasi nabadoonkuna hadda waa xidhan yahay laamaha amniga ee gobolka banaadirna wax wara kama aysan soo saarin waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla